kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ugu dambeyn Messi Champions dunida caawa waa Messi wala Messi koobka kaliya xirfadiisa ka dhinna waxa uu ahaa koobka adduunkana sanadkan isaga soo doontay sababtan ku leeyahay koobka adduunka isaga soo doontay 6 rikoor loo dhigay hal rikoor waa khasaariyay shantii kala shabag waa koobsaday Messi kaliya waxaan oran karnaa the greatest of all time ninkii ugu fiicnaa inta kubadda cagta ay socotay wala sina madax xanuun caawa taageerayaasha Ronaldo ay ku seexanayaan sidaas oo Ballon d'Or kisteedana uu ku soo socdo xaalku ma sahlana arinku waa allow sahal runtii caawa dunida oo dhan waa Messi koobkii kaliya xirfadiisa ka dhinna waa ku guuleystay rikoodho far badan baa jiro daawaha u saarnaa kuwooda uu gaaray waxyaabahan macquulka hayn ee kulankii caawa laga diiwaan galiyay eegi doonaa muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like Sara sina share gareysa asxaab badan ay u gaadho haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqatana fadlan rukumo oo kambaleelkana furo saad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada mar labaad soo dhawaada saaxiibayaal haddaynu ku bilowno caawa waxaynu daawanay mid ka mid ah finaalada kubadda cagta kuwooda ugu wanaagsan ee ugu xiisaha badan leh kubadda wajiyada ay leedahay bay caawayna bartay wala caawa maxaan kubadda daawanay runtii ugu dambeyn kubaddu waa u hiilisay Messi koobka gacantiisa waa galay laakiin kulan buu ahaa siro joog lagu daawaday dhalada caawa laguma horkacayn wala caawa kulan bay daawanay mid ka mid ah kulamadu haddii aanu haynba kulan final koob adduun kii ugu fiicnaa abid ee la daawado ee sidaas noqda ee runtii 2 daqiiqaba xaalku dhinaca kale isku rogo wala caawo kubadda wajiyada ay leedahay ayaynu baranay kulan ma oran karno runtii kulan kaliya kuma tilmaami karno caawo maxaynu daawanay kubadda Lionel Messi waa u hilisay runtii Argentina waxay sameysay caawo record ay Spain 2010 ay sidoo kale iyadu ay taariikhdeeda ugu diiwaan gashatay koob adduunkii lagu qabtay South Africa runtii taariikhdu mar labaad ay haddana isqortay Spain waxa ay xulkii ugu horeeyay ee kulankii koobaad ee guruubada la garaacay haddana koob adduun ku guuleystay Argentina idan sidan waxay sameynaysaa sanadka 2022 kulankii ugu horeeyay oo la garaacay waliba Sacuudiga soo garaacay Miyaslad Chimbal ka soo gaaraysa Miyaslad Messi baa qaadaya koobka adduunka wala kubadda cagtu waa wajiye badan tahay Argentina taariikh kale ayaa isku qortay inay noqoto kooxdii labaad ee guruubyada kulankoodii ugu horeeyay la garaacay haddana koobka adduunka guuleysanaysa wala Argentina waa madax adeegtay wada dheer baa soo martay caawa kulan bay ciyaareen kulan kaliya laguma tilmaami karo kolba dhinaca isku bedelaysa natiijadu wala half koro waxa uu muuqday in Argentina ay waa horba koobka ay qaadeen way maadsideen waxaan arkaynay Di Maria goolka labaad markuu dhaliyay inkastoo rikoodha Messi ka horeeyay si ooyiba horintii si xaqiiqsida koobka inuu qaadiyo laakiin waxa dhacday ka hor ka degdegin waa ku dambeysay wala kulanka waa la isku dhigay caawa Mbappe ayaa meel ka soo baxay hadalkii taariikhda ugu horeeyay ee laga dhalinayo koob adduun Mbappe wala waa xirfad cajiiba caawa kulan been daawano oo qolobta Francis uu dib u soo nooleeyay Mbappe Messi runtii kulankii markii uu soo gabagaboobay kulankii Sacuudiga ee furitaanka la garaacay waxa uu page-kiisa Instagram ku soo dhigay isagoo sawir la soo galay qoyskiisa oo ku soo qoray waan ilaalin doonaa dareenka qoyskayga waana kaga dhabeeyay dareenka soo ilaalinaya koobka adduunka waan qaadaya ayuu warkiisu ka dhignaa wala waa kaasi caawana Messi farta ayaa laga saaray the greatest of all time wax kale oran mayno taasi ayuu buu qalmaa wala Messi waa kaasi koobkii kaliya xirfadiisa ka dhinna farta caawa laga saaray ee ku dabaaldegay wala Maradona waa kaasi waa la simay runtii inkastoo odaygu aad u caawa ugu farxay taasi uu gaaro laakiin xaalku ugu badnaa isku rogayo natiijada kulba si ay noqonayso inkastoo uu taariikhda markii ugu horeysay uu gool uga dhalanayo xulka Argentina final Lionel Messi ayaa haatan waxa uu haystaa 26 kulan oo uu sameeyay taariikhda koobka adduunka waa ciyaartoyga ugu safashada badan koob adduun kulankan caawana waxa la filayaa inuu yahay kulankiisii ugu dambeeyay ee abid koob adduun xulkiisa Argentina uu safanayo inkastoo la filin doono kulamo kale oo ciyaari doona laakiin kulanka waxa la filayaa inuu yahay kulankiisii ugu dambeeyay ugu dambeynna fursadiisii ugu dambeysay riyadiisii ugu weyneed markiisii ugu dambeeyay iyo chancekiisii ugu dambeeyay caawi soo gabagabeeyay in koobka adduunka far laga saaro waxaana sidaas ku noqday xadiga ugu safashada badan leh taariikhda koobka adduunka 26 kulan ay sidaas ku shaftay
wala Lionel Messi maalmahan ba ka dhamaan mayno. Messi dunida caawa waa Messi ka dhamaan mayno haddaynu maalmahan ba Messi wadno dulqaata. Lionel Messi runtii waa ciyaaryahankii ugu horeeyay nin abid goal ka dhalaya heerka guruubyada wareegga 16 quarter finalka semi finalka finalka inkastoo caawa 2 gool buu ka dhaliyay odaygu waa kacsan yahay runtii waa ka muuqatay sanadkan sidii uu doonay koobka adduunka waa ka muuqatay sidii uu danaynayo fursadiisa ugu dambeeyay ka faa'iideeyo 2014 ay chance-kan u dhaafay caawana ma dhaafaya waa maya ayuu dhaaday Mbappe markiisii labaad uu ku guuleystay isagoo 26 jira Messi shaqo jira uu markiisii labaad uu koob adduun final uu seegiyo ma qorayo buu yiri markaan adaa ooyaya waan qaadaya koobka waa kaga dhabeeyay warkiisii runtii record runtii daawaha u saaran Messi ayaa jira waa recordka laftigeedba xadiga koobabka ugu badan ku guuleystay taariikhda waxaana la filayaa in saaxiibkiisa Dani Alves uu waliba isla sanadkan uu ka qaadi karo Messi muxuu baahan yahay kaliya Messi wuxuu u baahan yahay hal koob inuu qaado ama noqoto koobka Ligue 1 amba koobka noqoto hal koob ayuu doonayay si uu u barbarayo taariikhda ninka ugu koobka badan leh Dani Alves koobkii yaalay oo dhan dunida xaafsaday Messi recordkaasi ayaa caawa daawaha u saaran runtii abaalmarinada caawa la bixinayay Messi waxaan ku guuleystay ciyaartii koobka adduunka ugu fiicnaa runtii qaab ciyaareed ka sameeyay 7 gool oo dhaliyay iyo 3 gool oo caawiyay runtii Messi xulkiisa guusha ugu hogaamiyay waxa loo doortay markiisii labaad xidiga ugu fiican koobka adduunka sidoo kale waxay dhacday 2014 markii xulkiisa Argentina ay Germany ay ka qaadisay gool iyo eberka runtii markana isagoo ku guuleystay afarta laga saaray marka laakiin isagoo laga guuleystay ayaa la siiyay Mbappe ayaa isaguna gool dhinta ku guuleystay oo 8 gool ay saas ku qaaday Messi laftigiisa 7 leeyahay kama yaraysan wala Messi marba caawa xidigii kulanka ugu fiicnaa xidigii gool dhalinta koobkii adduunka ruuxo marba isku wadaysan gaaray sidii ka dhacday koobkii Copa America ku guuleystay ciyaartii ugu fiicnaa assistigii gool dhaliyay xidigii ugu dambeyn noqday xidigii luxay koobka adduunka koobka America xidigii luxay markii dambana uu noqday wala Messi caawa marka la marbu taa dhigi gaaray laakiin anu waxaan ku leeyahay sidoo kale gool dhaliya gool wadaha waxa loo doortay Martinez wala Martinez maxaa sameynaya daqiiqadii ugu dambeysay waan oran karaa 120+3 lagu daray ayuu goolkan u badbaadinayay Emiliano Martinez wala waa gool hayo sanadka Messi gool haya ku dhacay ciyaartii daacadaha ba ku dhacay oo dhamaantood si Argentina koobka loogu qaadi lahaa dadaalka ka weynaa waxa uu in Messi loo qaado ragu daacada ayuu sanadkan helay Enzo Fernandez ayaa isaguna ku guuleystay daayirkii ugu fiicnaa koobka adduunka qaab ciyaareedkiisa wacdara uu ka sameeyay koobka adduunka waxa farta laga saaray xidiga daayirka ee ugu fiican koobka adduunka wala sidani ay ku soo socoto Ballon d'Or-kii 8aadna sidee madax xanuun ay u xamili doonaan taageerayaasha Ronaldo iyo waliba Ronaldo si ay u xamili doonaan imikaaba caawa madax xanuun la seexanaya oo wiigan dhan Messi madaxa ka haysanaya oo runtii say uga seexan doonaan Ballon d'Or-kii 8aad waxay idin hubala in sanadka Messi farta laga saari doono maxaa lagu siinayaa Copa America lagu siisay koob adduun uu qaaday oo wacdarahaas uu ka sameeyay isagoo 8 jira ayuu sanadkan koob adduun ku wacdareynaya xidig istixlaad jiro gool dhalinta kula tartamaya xidig ugu fiicnaa buu qaadanaya 7 gool buu dhalinaya sidee koob adduun oo 5 gool Copa America oo 5 gool ka dhigay 4 caawin ka sameeyay ayaa lagu siiyay si loo siin waaya markana hubaal waxba mariyaan gelin Ballon d'Or-kii 8aad Messi meel ayuu siiyay taasi aan ku leeyahay waa madax xanuun kale oo labaad oo isugu taageerayaasha Ronaldo runtii rag waa kala tagay si orodna maaha Aguero runtii waa hero waa halgamaa taageeraya waa ninka kaliya ee dhiirigelinaya xulka xalayna waxay dabeen oo Messi ula seexday qolkii ay sanadooyin badan ay qol wadaag soo hayeen wada seexan jireen si kulanka ay maanta ciyaar ay si wada gorfeeyaan waa joogay waana ku dabaalday garoonka waa soo galay runtii Aguero ciyaartii loo dhiga male wagaas xulkiisi waa dhiirigelinaya wadna xanuun buu ku seegay maahane taariikhdaasi Argentina ay qorayso ayuu sanadkani oo ka mid noqonaa Messi ayaa Argentina goolashiisii ugu horeeyay abid ugu dhalinaya kulanka ugu dambeeyay finalka caawa 2 gool u dhaliyay kulankii rikoodhaha iyo kulankii saddexaad inkastoo xaalku aanu caawa sahlaneyn wala mar baan jira odayga ama qoto laga qaadaa koob adduunka
armaadiga caaw laga oohiya Mbappe wala ninkan waa jiil dahabiya wala waa ciyaartoy aan caadi ahayn waxyaabaha sameynaya spiritkiisu Argentina la ciyaaray Mbappe oo kaliya ayaa la ciyaaray wadarkiisa halfka hore Giroud iyo waliba Dembele inay iska soo saariyeen Angel Di Maria waa go'aamiyaha finalka Copa America finalism World Cup la'aanta Angel Di Maria Argentina ma qaadin weligii final kumana guuleysan runtii waxa uu gool ka dhalanayaa Copa America oo goolkii farta ay ku qaadeen oo sabab u ahaa finalism oo goolashii ka dhigay oo qayb ka qaatay koobka adduunka oo goolkii labaad uu dhalinayay runtii la'aanta Di Maria Argentina maaha Di Maria waa go'aamiyaha finalada Argentina finalka soo gool waa dhalinaya Angel Di Maria runtii dhaawac ku seegay finalkii koobka adduunka 2014 haddii uu ciyaar lahaa arma Argentina dhankooda soo mar lahaa maadaama uu yahay Di Maria go'aamiyaha kaliya ee koob adduun Argentina kulan final ay ciyaartay intii uu ciyaariyay xafadiisa waa soo taabanay shabaka 2022 wakaasi isagoo go'aaminaya Mbappe wala taariikh buu dhigay wala caaw waxa uu sameeyay taariikh lama hilmaamaana ku guuleysiga kabta dahabka ee koobka adduunka ayuu xaqiijistay Mbappe oo 8 gool ku qaaday wuxuu France uu ku hogaamiyay finalkoodii labaad ee xiriira koobka adduunka runtii koofida amaba hadrika waxa uu dhiriyay waa hadrigi final uu isagoo oo istixlaatin jira uu ka dhalanayo Mbappe waa hibo jiil aynaan mar dambe dib arki doonin wala waa hibo ninkani runtii waa jiil dahabi Mbappe Kylian Mbappe runtii waxa uu dhalanayaa istixlaadii ugu horeysay ee final koob adduun tan iyo Geoff Hart oo runtii sameeyay 1966 hadri koob adduun ka dhaliyay caawana waxayna daawanay mid kamid ah finaladii ugu qorxoona ugu xamaasada badnaa kulan la fariisan waayay ka hor inkastoo halfka kulanku uu muuqday Argentina baalka ay qaadayba laakiin markii dambe xaalku waa la isaga dabeeyay ka fariisi bay noqotay waa la farxaa haddana natiijadu waa isbedesha wala caaw waa la yaabay kubadda cagtu wajiyadeeda ayana tustay in kastaba gool isku haleyn lahayn 2 gool isku haleyn lahayn 3 gool isku haleyn lahayn haddii meel lagu wado 3 gool ku xajin maayaan runtii caawana Messi kubaddu waa u hiirisay farta laga saaray koobkii kaliya ee taariikhdiisa kubadda cagta ka dhinna koob kale tabaya ma leh wala waxaan filayaa inaan ciyaartoy dambe Messi dib loo soo barbardhigi doonin haye hadhow kubadda cagta marka laga fariisto maxaa haysataa waa meesha taal maxaad kubadda ka soo qabsatay maxaad soo samaysay taal Messi arinka lagula kaftami maayo mar dambe waxa dhici karta inaan dib arag masraxayda waaweyn oo loo kaftamayo waa kay goodka Messi iyo Ronaldo warkaas waa soo dhamaaday warkeena ciyaaruhu oo naga tahay saaxiibayaal intaynu kulmi doono warkeena kale wassalaamu calaykum